Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Welcome to Grand Online Academy. This is teacher Mohamed, and welcome to this lesson for today on phrasal verb commands. Here in this lesson for today, we will take phrasal verbs that are often used as commands. And before we start the lessons, dear students, I'd like you to like the lesson by pressing the like button and also share it with your friends and family. Thank you very much. And the other thing that I would like to let you know is that we are taking new English online classes. So if you want to learn English and master English at the comfort of your house, you can contact us, the numbers here on the screen. Thank you very much. Dhammaan kusoo dhawaada Grand Online Academy. Waa Macallin Mohamed. Kusoo dhawaada casharkeena maanta oo ku saabsan phrasal verbska loo adeegsado marka amar la bixinayo. Okay? haddaba intaena casharka u gudagelin waxaad ka codsanayaan casharka noo like garaysaan sidoo kalena la wadaagtaan bulshada iyo qaraabadiina ku xiran social media ama baraha bulshada sidoo kale waxaan qaadanaynaa fasallo cusub oo luqadda Englishka haddii aad doonayso luqadda Englishka inaad muddo kooban ku barato fadlan nagala soo xiriir numberada shaashada ka muuqda aad baa mahadsantihiin. And now we're going to start the lesson and let's get to the board. Like I mentioned earlier, today we will take a lesson which is about phrasal verb commands. Okay, here we have a list of phrasal verbs, and these phrasal verbs are often used when giving commands. Okay, marka halkan waxaan ku haysanaa phrasal verbs oo ku saabsan casharkeena maanta. Marka phrasal verb maanta aan ku qaadan doona casharkeenan waa midka loo isticmaalo markaad amar bixinaysid. Okay, bal aynu eegno. Let's take a look at it. Listen up. Listen up. Listen up. Marka listen up macnaheedu waxa weeye waa dhegeyso, si taxaddar loo dhegeyso. Okay, when you're basically telling someone to listen up, it means you want them to listen to you carefully. It's when you want them to pay attention. Marka listen up markaad leedahay dhegeyso waa si taxaddar loo dhegeyso. Waxa weeyaan pay attention. Dhammaan markaad soo jeedi waxa weeyaan dhegeysigaaga. Listen up. Okay? The meeting starts now. Listen up. The meeting starts now. Waxa weeye si taxaddar loo dhegeyso. Hadda ayuu bilaabmayaa meetingkii ama kulankii ayaa hadda bilaabmaya. Okay, so listen up is an example of a phrasal verb being used as command. Okay, listen up waa maxay? Waa phrasal verb oo loo isticmaalayo marka amar la bixinayo. Dhegeyso weeye. Waa soo jeedso ama si taxaddar leh oo dhegeyso. Okay, number 2. Grow up. Grow up and stop acting like a child. Grow up and stop acting like a child. Marka grow up macnaheedu waxa weeye soo kor weeye, soo barbaar ama u dhaqan sidii qof weyn oo waxa weeye mudakar ah. Grow up waxa weeye u dhaqan sidii qof mudakar ah. Marka grow up waa soo kor means to mature or act like a mature person. Waa soo barbaar ama sidii u dhaqan qof oo waxa weeyaan markaa mudakar ah. And stop acting like a child. Jooji sidoo kalena u dhaqanto sida ilmo yar, like a child, sida ilmo ciyaal. Marka grow up macnaheedu waa markaad amar bixinayso waxaad leedahay qof markuu ama sida ciyaal u dhaqmeedo aan said grow up and stop acting like a child. Waxa weeye si mudakar leh u dhaqan oo sida ciyaalka ha u dhaqmin. Okay? Okay, number 3. Watch out. Watch out. Marka watch out macnaheedu waxa weeye markaad qof u digayso ama wax caqabada wax dhibaato ku soo socda kala tusaalaan gaari baa ku soo socda iska eego kale weeye. Hey, watch out. Okay? Marka watch out means to pay attention or to be very careful to a danger. Okay? We use this when we're telling someone or when we actually want someone to be, okay, to be very careful about a danger. Marka waxaan isticmaalnaa markaan qof ku leenahay aynu uga digayno wax ku soo socdo oo markaa dhibaata. Watch out when you're driving on the icy road. Watch out when you're driving on the icy road. Marka maxay? Ka taxaddar. Iska ilaali. Markaad gaariga wado aad ku dul wado wadooyinka barafka leh. Icy road waa wadooyinka barafka leh. Marka watch out waa ka taxaddar. Iska ilaali. Okay? Okay, moving on to number 4. Back off. Back off marka macnaheedu waxa weeye markaad qof ku leedahay oo tusaalaan qofku si cara leh kula dhaqmayo ama uu ku caragelinayo. Okay? It means to stop being involved in a situation or to tell someone not to interfere your affairs. Marka qof ku leedahay halka iga joog yani dhibaatada iga daa oo kale weeye. Or it could also mean to tell someone to retreat. Okay? To go backwards
sidoo kale waxay noqonaysaa qof marka leedahay dib iga baxo kale xaggayga joog back off okay sidoo kale waxay noqonaysaa markaad qofku leedahay hay soo afaara gelinin hawshan iska daa adigu kuma taala aniga qabanaya salaan kale sabe back off and let me handle this and let me handle this on my own okay back off waxa weeye xagga iga joog oo iyo golow inaan anigu hawshan anigu kaliya qabto back off and let me handle this on my own okay handled okay I actually forgot L and E okay back off and let me handle this on my own waxa weeye xagga iga joog yani hay soo gudagelin aniga ayaa hawshan qabanaya okay marka back off macnaheedu waxa weeye iga joog hay soo afaar gelin ama dib iga joog okay okay number 5 hang on means to wait for a short time waa inaad wax sugto muddo yar kooban hang on I will be with you in a moment hang on I will be with you in a moment waa isug waqti yar waan ku iman doonaa I will be with you in a moment waan kula joogi doonaa waqti yar kooban marka hang on macnaheedu markaad amar bixinaysa leedahay isug waqti yar kooban it means to wait for a short time okay number 6 speak up macnaheedu waa maxay sare u hadal si la maqlayo it means to speak or talk louder okay in a loud voice speak up so everyone can hear your opinion speak up so everyone can hear your opinion macnaheedu waxa weeye sare u qaad hadalkaaga marka qof walba uu ka maqli karaa oo uu maqli karaa your opinion aragtidaada ama fikirkaaga speaker macnaheedu waa sare u hadal it means to talk in a louder voice okay waana cod kan ka sareeyaad ku hadashid and we will move on to the last one it's wait up okay wait up means to wait for a person okay to catch up wait up when it's sugtid okay wait up sug weeye I can't walk that fast I can't walk that fast marka qof kale uu ka hordheereeyay marka qofkii dambe ku wait up I can't walk that fast sidaas oo dhan xoog uguma socon kara isug weeye isug aan soo gaaray marka wait up macnaheedu waa sug weeye okay to wait for a person to catch up when qof ku soo gaaro wait up I can't walk that fast okay isug saas oo dhan xoog uguma soo socon karo ama xoog uguma lugayn karo okay so here waxaan ka fahanay phrasal verbs ka maanta 10 kan ka qaadnay yihiin kuwan isticmaalno when we are giving commands markaynu amar bixinayno and this is very important and very crucial in everyday English aad bay muhiim u yihiin kuwan marka maalinlaha waxa weyn Englishka maalinlaha ah marka they are very important and if you use these phrasal verbs and give them as commands they will help you to sound more like a natural speaker and this is it for today dear students thank you very much and see you next time in the next class assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh